waayahay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta lahow halka aad nagala socotaan waa barnaamijka gaarka ahaa isla markaana ku saabsanaa 33 guuridii ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay mideynta Somali Community Center ee ku taala bartamaha magaalada Toronto ee dalka Canada waxa ay la taagan Mahad Cali Yuusuf oo markaa iyo xilligaaba goobjoog u ahaa barigii dhidibada loo taagay mideynta Community Center waqti badan ka shaqeynayay soo halgamay mahad marka hore hambal iyo 33 guurida ka soo wareegatay mideynta Somali Community Center walaalo mahadsantahay aad mahadsantahay bal waxa nooga sheegtaa maanta barnaamijkan dadka aadka u fara badan isugu yimid halkan muxuu ku saabsanaa maanta waxaan u dabaaldegaynay sanad guuridii 33aad ee ururka howlaha uu u qabtay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto oo intaas ka shaqeynayay ama ha noqoto shaqo geynta ha noqoto guri geynta ha noqoto immigrationka settlementiga ama ha noqoto arrimaha dhalinyarada barnaamijyo tiro badan oo qabto gaar ahaan mataqaanaa caafimaadka mental healthga waxbarashada ururka shaqo tiro badan uu qabtay sanadkan waxaan u dabaaldegaynaa accomplishmentskiisa iyo programmo tiro badan oo nagu soo zaa'iday uu ka mid yahay barnaamijka family well-being la dhahayo marka barnaamijyadas u dabaaldegaynaa sanadkaneeto oo mataqaanaa dadkan tirada badan isugu yimaadeen dad kula shaqayn jirana sanadkan waa retire gareeyeen dad cusubna waa yimideen maxaad u rajaynaysaa dadka cusub sanadkan dadka retire garow waxaa ka mid ah board of directorska oo rangareeyo organizationka gudoomiyihiisii oo shaqo badan la soo qabtay mudane Malcolm shaqo tiro badan oo la qabtay waa lawyerkeenu ahaa talooyin badan oo siin jiray inkastoo ururka kama u tagayo laakiinse waxa weeyaan mataqaanaa waa waqtiga dhamaaday sanad kasto ilaa 6 sanadood ka badan qofka boorka ma uu ku jiri karo marka waqtigiisa dhamaaday laakiin boor cusub soo galay oo hadda nagala joogto Safiya Xiiri Qaasin oo horeyna member ogaado boorka hore u soo serve gareysay marka iyo shaqaalaha oo mideynta ka shaqeeyo especially ubax iyo Sabriin Shaakir iyo ninka odagaha ximbil oo garab taagan mideynta Somali Community Center daawadayaal waxay qabataa adeegyo kala duwan oo isugu jira inay dadka ka caawiso sida guriyeynta kale sidoo kale waxay dadka ka caawisaa youth-ko kale ay aad u caawisaa Shaakir iyo ubax ayaa labadiida bidix iyo midig taagan Shaakir ubax marka hore maxalladaas 33 guurida ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay mideynta Somali insha Allah waxa waaye accomplish weyn iyo horumar weyn oo la gaaray sidoo ma had sheegay 33 sano waxa loo shaqeynayay bulshada istilna waa u shaqeynaynaa waana privilege waxa waaye weyn nimco Ilaahay keeno inaad dadkaaga u shaqeysid oo dadkeena Soomaalida nooc kasta isugu jira dad aqoon yahalyaal ah dad maxaan ku iraahdaa culculus inay noo imaanayaan oo service ina weydiisanayaan annagana wayna hambal gareynaysaa marka congratulations aan leeyahay waayahay Shaakir ayaa asagana igu haya bal Shaakir oo Soomaalida shaqooyin fara badan bad u qabataa shaqada adiga aad qabato maxaa kamid ah horta mahad waa mahadsantahay marka koobaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka Mahad Cali Yuusuf runtii waxaad dareemi kartaa 33 sano in bulshada loo adeegayo wax sahlan maaha laakiin waxay u baahan tahay leadership iyo hoggaan fiican iyo in ummadda maaragtay wixii ay u baahan yihiin markaas lagala shaqeeyo oo maaragtay loo istaago intaas markaan ka soo gudbo aniga waxaan ahay youth outreach worker especially qaybta clinicianka dhalinyarta waxa ku badan wadankan aan ognahay afartii qofba hal kamida sida statisticska wadanka ku cad ayaa maaragtay mental health qabo marka dhalinyar badan waxa jira mararka qaar isfaham waayaan familka anka iskuulada ay maaragtay waxa waaye gaabis ka dhaco shaqo la'aanta maaragtay waxa waaye waxyaalahaas oo dhan marka dhalinyarta meesha stress intay qaadaan ay jidadka seexan lahaayeen ayaan waxaan ku duwnaa oon kula talinaa inay wadada saxda qaadaan talooyin ayaan siinaa follow upna waa ku sameynaa wixii markaas u baahan yihiin waa ka caawinaa marka shaqooyinka aan qabtaa waa midaas kaliya ma ahan waxaan sidoo kale kala shaqeeyaa oon macnaha aan community-ga dhankiisa kala shaqeeyaa ilaa 130 maaragtay family oo baahiyadooda maaragtay qaar ay wadniyo ka mar yihiin qaar ay yihiin maaragtay kuwa wadanka muddo joogay oo income-kooda uu yar yahay ayaan food bank service siinaa arbaca kasta ayaan siinaa runtii oo taasan dareemi karno baahida ama food insecurity-ga ka jira wadanka ayaan maaragtay ka caawinaa mideynta ayaana arrintaas qabato marka familyo fara badan oo wadanka ku cusub walwal kama qabaan inay helaan maaragtay waxa way caawinaad xagga community-ga
sidoo kale housingka oo kale aan ognahay inuu yahay another crisis oo waddanka ka jiro ayaan waxaan samaynaa inaan dadka advocate dad badan oo Soomaali ah ayaa xareystaan guryihii markay xareystaana wax follow up ma sameeyaan maxaa dadka waxaa yar inay xagga teknolojiyadda ay adabti ay macnaha ay yaqaanaan marka dadkii laga kansalay faylashii applicationadii waxaas oo dhan ayaan dib ugu soo celinaa waxaan maaragtay waxa uu update gareynaa faylashooda waxaan u xareynaa guryaha mar walba informationka la xiriira dhankaas ayaan la siinaa waa mahadsantahay Shaakir in family will be being oo ayadana maanta programka qayb ka ahayd isla markaana shahaado sharaf la guddoonsiiyey timir marka hore soo dhawo xoog baa mahadsantahay si fiican baan u dooyahay magacayga waa Timiro waxaan u shaqeeyaa ururka Madaynta Community Services waa ururka kaliya oo Soomaalida u shaqeeya oo u dadaala anigu barnaamij oo wada la hordo family well-being ma anigu mas'uul ka yahay barnaamijkan wuxuu ku xisaaban tahay qoyska nabadgelyada so adi af Ingiriisiga lagu translate gayo waa family well-being ina families ka inay isku soo duubnaadaan ina familyga loo shaqeeyo resources community ku dhex jira dadkaas loo macneeyo oo lagu xiro xiriirkaas baa muhiim adi reer waxa la yiri aqalka waa reer ba maamula adi reerka isku duubnaayeen reerka uu kala jajabaya so sidoo kale Axmed Cilmi Kulmiye oo nin caan ka ah magaalada Toronto ee dalka Canada maanta waqti badan baa dadkan vote taagayay wal Axmed oo adiga meeshan waxa la yiri marka horeba Axmed kama marnayn haddana maanta waa maxaad naqatay mahad aad iyo aad u mahadsantahay iyo sida shaashadaada isa u cover gareysa showyada magaaladan aadan kaaga mid celinay sida noogu dhigtay adduun weynaha marka magacayga waxa la yiri Axmed Cilmi Kulmiye waxaan ka tirsanaa board memberka waxaan ahay Mideynta caawana waxaa laga hadlayay Mideyntii iyo sanad guridii 33 laga hadlayay oo ka soo wareegatay asaaskeedii marka Mideynta wax badan ay community u qabataa community kala jiro waxa jira Somali Immigrant Aid waxaan ka mahad celinaynaa shaqaalaha Mideynta inta badanna waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo Mideynta horumarka ay gaartay waxa waaye inta badan waa dumar waa gabdho waxa hawsha wada raggu waa ku yaryahay marka mahad aad iyo aad aan kaaga mahad celinaynaa fursadan qaaliga ay siisay waa mahadsantahay Axmed wax badan baad bulshada u qabataa marka hore boorka waa ku jirtay laakiin maanta maxaa Soomaalida degan Toronto u sheegaysaa Soomaalida Toronto waxaan u sheegaa wallahi dad fiican waaye majority Soomaalida waxaan u sheegaynaa qof walba meeshii oo wax ka qaban karo community wuxuu u baahan yahay caawini karo waxaa jiro community badan community waxaan jecelnahay in la support gareeyo masaajidada jira aykan oo role weyn oo vital ka ciyaar community-ga kuwaas in la support gareeyo marka adduunka hadaa fiiris westernka community ku xiran yahay community oo dawladihii dadka yimid diaspora intii community noqdeen Soomaalinimadan in la isku kaashado waa wax muhiim ah aad baan kaaga mahadcelinayaa iyo welcome Maxamed thank you